ciidanka militariga Somaliland oo u badan beesha Isaaq ayaa soo buux dhaafiyay agaarka magaalada Laascaanood halkaasi oo ay ku qulqulayaan wufuudii ugu cuslaa oo ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari. xaalad cabsi ah oo ka jirta magaalada Laascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay amniga magaaladaasi oo aad loo adkeeyay. waxaan sidoo kale saaxiibayaal idinla wadaagi doonaa 10,000 oo ciidan ah kuwaas oo isugu jira koofiyo guduuda madaxtooyada haram cad iyo booliis ayaa la wareegay amniga magaalada Laascaanood. guud ahaan magaalada Bandow ayaa lagu soo rogayaa ciidanka beesha dhulbahante amar ay ku bixiyeen in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada soo gelayo magaalada Laascaanood. dhinaca og xabada ayaa laga soo warinayaa xoga ayaan saaxiibayaal dhammaan arrimahaas idinkaga la wadaagi doonaa. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa guud ahaan sida ay tahay xaaladda magaalada Laascaanood oo maanta ay gaareen wufuudii ugu cuslaa. waxaan idinla wadaagi doonaa sidoo kale madaxweyne xasan sheekh waqtiga rasmiga ah ee uu halkaasi tagayo iyo khatar haddii ay jirto. aan ku bilaabo daawadayaal. inta aan gudaha gelin ka hor waxaan idinka codsanayaa inaad halkan kusoo biirtaan muuqaalkana share gareysaan. taariikhdu waxay ku beegan tahay 12 bisha January sanadka 2026. aan ku bilaabo. ciidanka militariga Somaliland oo u badan beesha Isaaq ayaa soo buux dhaafiyay agaarka magaalada Laascaanood halkaasi oo ay ku qulqulayaan wufuudii ugu cuslaa kuwaas oo ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Soomaaliya Cabdulqaadir oo Cali Firdhiye. magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa buux dhaafiyay wufuud kala duwan balse taas bedelkeeda amniga magaaladaasi ayaa shaki la gelinaya iyada oo ciidankii ugu tirada badnaa lagu arkayo gudaha magaalada. maamulka Waqooyi Bari ayaa dhammaan ciidankiisa waxa uu geliyay heegan buuxo. xaalad cabsi ah ayaana ka jirta magaalada. wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in xilligan aynu idin la hadlayno magaalada gudaheeda lagu daadiyay ciidan tiro badan. luuq walba oo magaalada kamid ah ciidan ayaa la dhigay. waxaana sidoo kale ciidamadii Waqooyi Bari inta badan magaalada banaankeeda ay difaacay kaga jiraan halka magaalada gudaheeda amniga lagu wareejiyay ciidan ka yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. ciidankaas oo gaaraya ilaa 10,000 oo ciidan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ah ayaa isugu jira ciidanka militariga ee loo yaqaan koofiyo guduuda ama koofiyo casta ee ilaaliya madaxtooyada. sidoo kale halkaasi waxaa gaaray ciidamo haram cad ah. sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo maanta gaaray waxaa la socday ciidan aad u tiro badan. si kastaba ha ahaatee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool hadda waxaa ka jirta xaalad aan caadi ahayn. dadkii ugu tirada badnaa ayaa halkaasi ku qulqulaya. maanta waxaa gaaray wufuud kala duwan. wufuudaas oo isugu jira xildhibaano, wasiiro iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale xusid mudan in ciidanka beesha dhulbahante ay amar ku bixiyeen in la joojiyo dhaqdhaqaaqyo culus oo ka socda dhinaca og oo ay wadaan ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland. waxaana la sheegay in hadda ciidamadu ay soo fadhiyaan saacad walbana ciidanka militariga Somaliland waxa ay rabaan inay gudaha u soo galaan magaalada Laascaanood balse taasi waxay u muuqanaysaa mid aan marnaba suuragal noqon doonin. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamo tiro badan waxa ay geysay Waqooyi Bari si ay kaga hortagto dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya gudaha magaalada Laascaanood. ciidanka beesha dhulbahante ayaa amar ku bixiyay in la joojiyo dhaqdhaqaaqa. sidoo kale ciidanka tirada badan ee lagu kordhiyay amniga magaalada Laascaanood ayaa marba marka ka dambayso waxa ay ku siifadayaan deegaanada hoos yimaada Laascaanood si ay amniga u sii xaqiijiyaan. saaxiibayaal maanta wafdiga halkaasi gaaray waxaa la sheegay in ay hordhac u yihiin safarka madaxweyne xasan sheekh ee magaaladaas. ilaa iyo haatan si rasmi ah looma xaqiijin waqtiga uu madaxweyne xasan sheekh gaarayo magaalada Laascaanood. xoga soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynuhu halkaasi uu gaari doono maalinta Sabtida ah una baaqday safar Khamiista uu ku tagi lahaa magaaladaasi. madaxweyne xasan sheekh ayaa ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka Waqooyi Bari Cabdulqaadir oo Cali Firdhiye halkaas oo caleemasaarkiisa lagu qaban doono. waana caleemasaar taariikhi ah. guud ahaanna waxay ka dhigan tahay in midnimada ummadda Soomaaliyeed sare loo qaaday. magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool saacadihii la soo dhaafay waxaa ku qulqulayay wufuud kala duwan kuwaasi oo ka tirsan madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi waxa uu ka jeedin doonaa khudbad taariikhi ah iyadoo ay xusid mudan tahay in magaalada Laascaanood ay tahay magaalada midnimada ummadda Soomaaliyeed maadaama ay markaasi martigelisay gooni u goosadkii aan ognaa Somaliland in ay ka hortimid. iyadoo aan taasi ognahay haddana hadda waxaa muuqanayso in magaalada Laascaanood ay Soomaaliya isu keenayso xilligan dalku uu ku jiro xaaladda xasaasiga ah. madaxweyne xasan sheekh ayaa sababta uu dib ugu dhigay safarkiisii Khamiista waxaa la sheegay in uu u soo baxay safaro kale oo muhiim ah kuwaasi oo dalalka carabta qaarkood ku tagi doono. arinta kale ee xasaasiga ah ayaana daawadayaal waxa ay tahay
in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee xiriirka si toos ah ugu jirtay maamulka ama dowladda isutaga Imaaraadka Carabta. Golaha wasiirada Soomaaliya ayaana goor u baabi'iyay heshiisyadii Imaaraadka. Tan ayaa ka dhigan guul weyn oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay gaartay iyo oo tin muddo ku taagneed ummadda Soomaaliyeed oo hadda ka fuqday. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u baabi'iyay dhammaan heshiisyadii amni iyo difaac ee u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Go'aankan ayaa si buuxda u saameynaya dhinacyada amniga, dhaqaalaha, difaaca iyo sirdoonka. Heshiisyadan ayaa horay waxay uga mid ahaayeen kuwa ay labada dhinac ku wada shaqeynayeen arrimaha tababarka, taageerada amniga iyo iskaashiga difaaca, waxaana la sheegay in baabi'intooda ay ku timid ama ay markaasi tana qaran iyo ilaalinta madaxbannaanida dalka. maalin ka hor go'aankan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa si cad u sheegay inuusan dalka ka shaqeyn doonin heshiis amni iskaashi ama aan helin ogolaanshaha dowladda federaalka Soomaaliya, isagoo carabka ku adkeeyay in wax kasta ay maraan hanaan sharci ah. Dhanka kale, ururka iskaashiga Islaamka ee loo yaqaano OIC ayaa isku raacay in Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay wada shaqeeyaan, arrintaas oo ururku ku tilmaamay mid saameyn ku leh dalalka muslimiinta isla markaana abuuraysa walaac siyaasadeed iyo mid amni. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalin ka hor Imaaraadku bilaabay inuu daadgureeyo agabka ciidan iyo shaqaalaha ka jooga gudaha Soomaaliya kadib markii dowladdu mamnuucday diyaaradaha military iyo kuwa xamuul ee kaargooga ah ee ka imaanaya wadankaas. Taas ayaa daba socotay warbixino sirdoon oo sheegay in diyaarado military oo Dubai leedahay ay si fasax la'aan ah u soo gashay hawada Soomaaliya, taas oo waday hogaamiyaha golaha ku meel gaarka ee Koonfurta Yemen ee loo soo gaabiyo STC Cindarus Al-Zubaydi oo baxsaday xilli la filayay inuu tago wada hadallo ka qorshaysnaa Sacuudi Carabiya. Sida aynu ogaanay, ilaa 4 diyaaradood oo agab iyo rakaab qaadaya ayaa ka baxay Muqdisho, halka 6 kalena loo fasaxay inay boosaaso ka daadgureeyaan wixii agab ciidan ah oo ka yaala halkaasi. Xiriirka Muqdisho iyo Dubai ayaa hadda ku jira maalmihii ugu adkaa, iyada oo Soomaaliya ay si toos ah ula safatay boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ay ku taageertay hogaaminta arrimaha gudaha ee dalka Yemen. Si kastaba ha ahaatee, hadda markaan arrintaasi eegno waxaa muuqanaysa in uu wajigu arrinta Imaaraadka ay tahay guul ummadda Soomaaliyeed ay gaartay. Guud ahaanna bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa soo dhaweeyay heshiiskan iyo sidoo kale go'aankan taariikhiga ah oo ay maanta gaareen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyagoo cuskanaya awoodahooda dastuuriga, ilaalinayana madaxbannaanida dalka, waxay qaateen go'aan isla maanta dhaqan galaya oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha January sanadka 2026, kaas oo ay ku difaacayaan midnimada, wadajirka dhuleed iyo nidaamka dastuuriga dalka. Golaha wasiirada iyagoo si taxadar leh u qiimeeyay xaaladihii u dambeeyay isla markaasna isticmaalaya awoodahooda dastuuriga ah, waxay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan hay'adaha maamulka dowladeed, kuwa la xiriira iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Go'aankan wuxuu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wada shaqaynta ay ku joogeen dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo. Golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee laba geesoodka ah. Go'aankan wuxuu la xiriiraa warbixino iyo cadeymo xooggan oo ku saabsan tillaabooyin gurcan oo lagu dhibaateynayo gobonimada, midnimada qaranka iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan falalkan waxay ka soo horjeedaan mabaadi'da gobonimada, faragelin la'aanta iyo ixtiraamka nidaamka dastuuriga ah ee dalka, sida ku cad ahdiga qaramada midoobay, ahdiga midowga Afrika, ahdiga ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo ahdiga ururka Jaamacadda Carabta oo dhammaantooda Soomaaliya ay xubin ka tahay. sidoo kale waxay ka soo horjeedaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo cadeeyay mowqifkooda ay ku diidan yihiin falalka gurcan ee lagu dhibaateynayo madaxbanaanida iyo wadajirka dalka. sidaa daraadeed, wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa la farayaa in ay si rasmi u gaarsiiso dowladda isutaga Imaaraadka Carabta go'aanadan kalena shaqeyso hirgelintooda, iyadoo oo sida oo kale gaarsiinaysa saaxiibada caalamiga ah iyo kuwa gobolka sida midowga Afrika iyo qaramada midoobay, isla markaasna cadeynaysa xuquuqda madaxbanaani ee dalka iyo awoodihiisa dastuuriga ah. go'aankan waxay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku cadeynaysaa mas'uuliyaddeeda iyo xuquuqdeeda madaxbanaani ee la xiriira dhulkeeda, dekedaheeda, arrimaheeda amniga iyo arrimaheeda dibadda. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ogoshahay iskaashi caalami ah oo ku dhisan is-ixtiraam, aqoonsiga gobonimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya
oo mid ah iyo hoggaansanaanta mabaadi'da dastuuriga ah iyo kuwa caalamiga ah. go'aankan waxaa loo qaatay si waafaqsan